kulanti wacan dhammaan daawadayaal waa barnaamijkeennii isbuuci tagay iyo wargeyska maalinlaha Jubba ood maalin walba oo talaada naga daawan kartaan barta aanu baraha bulshada ku leenahay sida Facebook-ga iyo YouTube-ka wararkii ku dhaafay isbuuci tagay waxaa ka mid ah gaashaanle Ismaaciil Cabdi Maalik oo ahaa saraakiishii hogaaminaysay ciidamada badbaado qaran ayaa ciidan uu hogaaminayo uu ruqaansaday magaalada Ceelbuur howlgalka aadi doono oo dalka dib u xoreyntiisa ka qayb qaadan doono deegaanadii aad ka imaateenna oo adinka waalidkiin iyo hooyooyinkiin iyo qaraabadiin kulli ay ku nool yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin waa ka warhaysi Liban Sambololshe oo ah siyaasi af adag ayaa gaaray jiidda hore ee dagaalka ninka hadday balaayo qabsato culays qabsado xanuun qabsado shida qabsato ku samra oo ku qancana ilaahay waa u bishaaray war waxaan horta wasiirka awqaafta iyo diinta oo ka mid ahaan jiray kooxda al-shabaab ayaa fatwa ku saaray al-shabaab in ay yihiin khawaarij qorraango fatwa sharci ah oo culimada Soomaaliyeed hasaarti la hansaari shabaab ma iyin culimada maadii is warsadeen shabaab daqani ma istareen culimada isku waafadeen minkum khawaarij walaari gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto Cusmaan oo ku dhiirigeliyay ciidamada ka xoreynta al-shabaab gobolka Hiiraan in ay dilaan hooyooyinka kooxda al-shabaab ismaqlaado yaa qoortayda haysta oo madaxiisa ama xinihiisa soo laalaadina keena $5,000 aanu ku bilownay gaashaanle Ismaaciil ayaa ahaa dhalinyaradii u cadcadeed ee ku soo ifbaxday ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waliba qaybta danab gaashaanle Ismaaciil waxa lagu xasuustaa waxa uu qayb ka ahaa saraakiishii ka xoreysay kooxda al-shabaab gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan magaalada Janaale gaashaanle Ismaaciil ayaa xilkiisa ku waayay kadib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq iyadoo markaa ay socotay baaritaan ku saabsan musuqmaasuq lagu soo eedeeyay ayuu ku biiray kooxda la magac baxday badbaado qaran halkaasoo uu ku waayay darajooyinkiisii balse hadda waxay u eg tahay inuu dib u helay darajooyinkiisii sababtoo ah waxaa dib loogu dhex arkay ciidanka xoogga dalka kadib muuqaal ay sii daysay warbaahinta qaranka isagoo hogaaminaya ciidan ku sii jeeda galmudug kuwaasoo loo qorsheeyay in ay ka qayb qaataan ka xoreynta al-shabaab deegaanada galmudug dadkii beeraleyda ahay waxay ku dhaheen wax beera oo aad beeri kartiin ma lahan dadka xoololeyda ahay nin walba neefka ugu jiray arigiisa ama geeliisa ay kala baxaan ilmihii yaryaraay markay soo weynaadaan mid walba markuu soo qaangaaro waa laga wadanaa markasiyaa lagu wada daraa waa la wada askareehaa mar walbana hooyadiis iyo waalidkiis waxaa loo soo sheegaa gobol hebel oo ku dhintay waxaa kale ee ugu sii dareen dhaqaalo joogto ah oo qof walba meesha uu joogo looga qaadaa wuxuu raba ha ahaado oo aan waqti lahayn oo maaliyad ay ugu yeeraan waxaa taas ayadana uga sii daran oo ay ugu sii dareen xurriyad la'aan oo dadkaas maanta wax xurriyada iyo sharafa iyo magaca ay haystaan inaysan jirin waxaa kaloo u shaneeya oo aysan u samaynin inay dumarkooda iyo gabdhaha mid walba markii la soo qaangaaro waxay rabaan ay ka samaystaan ee ay wataan waxaan ka rabnaa marka dadkaas dhibaatadaas ku jiro maanta inaad ka dhex bixisiin adinkaa leen ka rabaa nimanka saa u malaysiin maahano nimanku saas wada geesiyaal saas uma wada ah markay baabuurta isku soo xiraan bisay ummadda qarxiya yaqaanin maahane ma naf badan taargaday annaga noo tahay micnaha waxbaan ka raadihaynaa ma ahan micnaheeda marka inaan magaalada qabsadana waxaa ka u dhabar jab adag ayaga in magaalada intaan qabanna dadkii ugu muhiimsanaay oo indhaha u ahay aan ka soo qabsan waa nooc loogu talagalay nimankan in lagu argagax geliyo magaaladaas marka intaan la aadin ka horna inta qofoo ku nool waxaa lagu daraa qorshaha dagaalka lagu daraa magaaladaas marka waa la arbushaa waa la dhibaateeyaa wixii ku jirana waa la soo qabtaa hal xaba lagama soo tago laakiin ayagoona ogeyn ayaa lagu sameeyaa waajibaadka in saaranna waayo mas'uuliyaddaas marka inay saaran tahay inaad dareentiin oo qof walba uu dhabarka u xirto oo niyaddiisa intaas ayadoo ku taagan tahay oo goobtaas dagaalka markaad isku footi saartiin aan niyaddu ku haysin intaas hal la ogaado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaaliya dhan kale sheekh mukhtaar roobow abu mansuur ayaa ku tilmaamay kooxda al-shabaab inay yihiin khawaarij isagoo islamarkaana tilmaamay in culimmada Soomaaliyeed dhammaan isku waafaqeen in kooxda al-shabaab yihiin khawaarij ma inka faylaha shabaaba lusku dhawe runtii culimada sheegeen ما يصير شيء علماء الصوماليين ميركستو يروجان اسكدوبنين
may ka midaysinyina yo dhanka midowena halinko khilaafkooda leen hayne shabaab iniyo cadoweyno waan isku dhow ulmaadi daayeen shacabdaqani yani la fadhiyo shalay may loo wada roogni ulma badan roogan horraanga fatwo sharci oo ulmaada Soomaaliyeed hasaarti la hansaari shabaab ma iyin ulmaada ma diis warsadeen shacabdaqani ma istareen ulmaada isku waafadeen markuu khawaarij walaari ana niyada naftiya bawala la hajaale ku gabe khawaarijta eedan cibaadaysadaan walbadan ya isku ilaaliyo jireen cibaadadii malle ballan malle ruum malle walba malle annaftiya may gabayada naftiya ma laakiin wasiir eelayaata ma eraay wali ay baahnaan weeshi wali haatoba cadow in ay iska waafaqsanyi in la isku dhoo la iska waafaqsanyi in la handiyaar garoowi ya la iska waafaqsanyi in la inshal hirna ya la iska waafaqsanyi doogan babadiya dadka daalanyi maylaynin ballan ahaa in nimankaasooy lusku reeba suur ayaa sidoo kale sheegay in la dagaalanka al-shabaab aysan noqon igu sawiro taasoo in badan lagu eedeeyey siyaasiyiintu taha gashtay kuwaasoo jidda hore ee dagaalkaas ku soo galay sawiro dadkana geedka diyaarangay may dhigay igu sawir ay naganay idada sawirka boku obsado hay dad badan horta igu sawirtaba naftee maabuhun wadosay hoobadhiiniya bersho lagu feeri may weeri lankii igu sawir inta suurinaba kale koba may waha wajiga galanta saarado hebo maasa hiriday lamaadiyo kerong he lamaadiyo madun igu sawirtana ku tabaane na wada sawir iyo raana madun na wada sawir una dhong madun isla galaan waan isla bahaan deegaanka goobo oo hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa ah taliska ugu weyn ee ciidanka macawisleyda kuwaasoo ka xoreeyay kooxda al-shabaab goobo iyo ceel juqow ayaa waxaa booqasho dhiirigelin ah ugu tagay ciidamadaasi xildhibaan Sambalolshe oo ay weheliyaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaan iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta Danab oo uu horkacayo taliye Xasan Tuure ciidamada deegaanadaasi ayaa ugu warbixiyay xildhibaan Sambalolshe daruufaha ay ku shaqeeyaan ayagoo dawladda ka dalbaday in ay ka caawiyaan waxyaabaha ay u baahan yihiin sida gawaarida ay ku dagaalami lahaayeen dhanka kale xildhibaan Sambalolshe ayaa ballanqaadyo u sameeyay ciidamada deegaanadaasi gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaan ayaa ku dhiirigeliyay ciidamada ka xoreynta al-shabaab gobolka Hiiraan in ay dilaan hooyooyinka kooxda al-shabaab taasoo dhalisay hadalhayn dhanka social media-ha hadaladiisii waxaa ka mid ahaa dawladda ma lagu kicinayay adinkoo woona dhihi kara dhulkiinina jooga waxaanoo beeka amana wata war intiina haddii qofba qof shabaab dilo shabaab oo dhammaan ama ugudiino nin walba nin shabaab inuu dilaan rabaa nin ka badan leedin kama rabo nin kasta inuu nin shabaab soo dilo 20 anay ugu qof goostana la waa shabaab oo maleeshiyada qofkii soo dila hadda ma lees maqlaado yaa qoortayda haysta oo madaxiisa ama xiniyiisa soo laalaadina keena $5,000 أمير قفكي سودي لكو أمير ما هو توجي أمير المؤمنين وعلى هذا بدك صحابها وفعنا كو لكن هو كيسين يان نيكي سودي له $10,000 على الليرة يو كو لما ذا نيكي سودي لنا شن يلا واتنكو يا شقي سكرة oo abaalna anaga neerga kara abaalna yaa neerga kara aqriisana beeru fala kara jiilaalkana ka soo bixi kara intaasi ayaanu barnaamijkeena ku soo gabagabaynaynaa waad ku mahadsantahay dhegaysigaada walaal fadlan lagu caawi inaad sheer garayso barnaamijkeena haddii aad ku cusub tahayna fadlan subscribe leh oo gambalaalka furo si aysan ku dhaafin barnaamijyadeena anigoo ah Ismaaciil Kulmiye iyo bahda wargeyska maalinlaha Jubba waxaan idin leenahay is arag dambe oo wacan